jaaliyadda beesha maxamed harti oo deeq soo gaarsiisay dadkii dhibaatadu ay ka soo gaadhay dagaalkii ka dhacay dhowaan duleedka magaalada Laascaanood deeqdan lacageed oo la soo gaarsiiyay ayaa waxa ka faa'iideystay dadkii ku geeriyooday agoomihii ay ka tageen iyo dadkii ku dhaawac dagaalkaasi deeqdan ayaa waxa loo soo wakiishay culimo u diinka gobolka Sool oo ay ugu horeeyaan Sheekh Yuusuf Haybe Cali Cabdinuur Xaashi Xasan Maxamed Bootaan Jaamac Maxamed Ciise Sheekh Saciid Axmed Cadar ugu horeyn halkaasi waxa ka hadlay Sheekh Saciid Axmed Cadar oo yiri deeqdan noo soo wakiishay walaalaha Maxamed Harti waana deeq meel weyn ka dabooleysa dhibanayaashii ay dhibaatadu soo على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أمنت وقور عصر دبدية مضشنا ومعك عائشة بنت أبي بكر العلوم الشرعية والعربية في مدينة لاascaanood مهمة أن نسجني بوحي تعي إلى أن نقدسينه shaqaaqadii ka dhacday dhawaan gobolka Sool taasoo ay markaa ahayd dad dhintay iyo dad dhaawac noqday oo u qaybsan laba qolo dhaawac culus iyo dhaawac fudud iyo dad markaa la xiray oo markaa jeelasha ku jira waxaan guddoonsiinaynaa galabta amaano naloo soo dhiibay oo ay soo dhiibeen walaalaha beesha Maxamed Harti jaaliyadooda wadanka Mozambique lacagta iyo taakulada oo dhaqaale ahaan iyo dadka dhibaataysan ay u garteen waxay u gacan galiyeen oo u dhiibeen walaalaha u dhashay gobolka Sool oo ay ka mid yihiin Faarax Carab Kadiye Cabdul Muuse عبد الكريم دول يله iyo أحمد dhaqaalaha oo ay tiradiisu dhan tahay $5,600 waxaanu aragnay inaanu insha Allah taala u qaybin doono sida soo socota waxa dhaqaalaha lagu soo hagaajiyay amaanada haya Sheekh Yuusuf Haybe Buraale Sheekh Yuusuf Haybe Ibrahim Sheekh Xasan Maxamed Bootaan Sheekh Cali Cabdinuur Xaashi Cali Dheere Jaamac Maxamed Ciise iyo anigoo Saciid Axmed Cadar ayaa waxa aysan ahayn midda laga qaybiyay gudaha magaalada Laascaanood laakiin waxa jirta deeq ay jaaliyadda Maxamed Harti ee wadanka Mozambique gaarsiiyeen caasimadda gobolka Buuhoodle deeq caynkan oo kala oo dhamay $8,400 oo la gaarsiiyay dhibanayaashii dagaaladu ku waxyeelo الله نحرسته أفر سليمان أحمد جوهدو لمرشان عبدي أحمد علمي ورفاه قدومي العتاس سجال مرحوم وأنا قلت لك قبل متكي $100 وحنا قدوسين إن تذكي هلو دي هاي iyadoo aanu ka codsanayno sida nalagu soo wakiishay u soo gudbinay inay sida u gudbiyaan xubka hore la soo kiciyay magaciisa waxaan doonsiinaa $300 Abdi Yusuf Ahmed Adan Abdi Warsame Ali Awale Arale Abdi Warsame Ali Arale الله نحرسته الله يرحمه عود دومي عبدي بشير علي عيسى الله نحرسته أفر سليمان أحمد جوهدو لمرشان عبدي أحمد علمي ورفاه إبراهيم إسماعيل محمد عيسى تضبع محمود إسماعيل أو علي فارح عبد السمد محمد أحمد آدم سقال بالله سقال خضر سليمان عبد الله حاشي مرة ما نقلنا ضدك الله صباح العقد صدقة حولنا هي ماشي أتكسر صارتين وحكي خير بدل إلى هاي يمكن كبدله بقولنا هي ضدك عص وحنا نخبر عن قاعدنا وحد سيدا يقول ترى إن نوجد بنسيا حد يرتوه كانت هاي وإحنا نصور عصدنا ضدك هاي جادو أنا مالك العقد مرن علماء الشاقين
إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا dadka laga dhintay ilaahay cawl khayr qaba ilaahay ugu bedelo oo yani u gadaal mariyana ka barina adduunkan saacad baa lagu tagayaa oo laga tagayaa oo qof walba waqti uu leeyahay waqtigiisu noqonaya qodobka kale waxa weeye dadka walaalaha telefoonka nagu soo hadlay inaada sida ahayd bin ugu gudbinayna insha Allah saas bayna u daawan doonaan waxaan leenahay meesh ka soo saartay wax ka bedelo anaguna amaanada si aad ugu soo gudbisbaan u gudbinay insha Allah وجزاكم الله خير بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم جزاكم الله خير السلام عليكم dadkii lacagta soo ururiyay ehelka ahaa dadka dhintay dadka dhaawacay dadka maxaabiista u soo diray marka hore waxaan u mahad celinaa ilaahayna waxaan uga baryanaa meesha ka wasaaray waxsan la ugu bedelo dadkii dhintay dadkii ay ka baxeen cawl khayr qaba Allah siiyo dhamaanteena samiriyeen Allah inaga siiyo waxaan kaloo halkaa ugu gudbayaa dadka wixii loo soo dhiibay loo keenay wayna soo gaarsiiyay si fiican oo sharaf leh oo tidnimo leh ayay ku soo gaarsiiyeen wixii kale sida ay warbixiyeen bay warbixiyeen waxaan leenahay kuwa soo bixiyayna Allah meesha ka soo bixiyeen Allah u barakeeyo wixii kale haatan dadka soo caawin kara hadii dhibto haysana waa looga fadhiyaa waxay tahay inay dad walaalahooda soo caawiyaan wuxuu kuwa laga dhintay kuwa dhaawacaba iyaga hasan leeyahay jazakallahu khayr assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Dikarin Olol S24 TV xarunta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool